cuniga marka waxyaabo basiida marka u dirtid oo adiga amar weyn aan ahayn oo ka maqlay kuwaas ku focus garay oo markaan ku wacay waa iimaatay right away iimaatay praise garay praise waxa la dhahaa inaa buubuuni tan kaleeto ogaaw in adiga waalid tahay bedelaada iyo isbedelka adiga lagaaga baahan yahay ina la imaatid oo cuniga hada isbedel u baahan yahay adiga aad kala shaqaysato program u samaysido adiga aad aqoontaadi oo parentinimada waalidnimada aad kordhisido adiga inay shaqo weyn ku taalo ogaaw cuniga inuu saqiin yahay ilaahay mas'uul bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada walaashiina sucaad videoga waxaa la socdaa videoga hore aan soo duubay uga hadlay 4 khaladaad oo waalidiinta ku dhacaan oo saameyn ku lahaata mise sii kordhisa madax adeega ilmaha marka videoga waxaa uga hadli doonaa 4taas khaladood ba hadaa aan soo fahanay oo aan iska ilaalino most of the time maxaa marka aan sameyn karnaa si ilmihii aan ugu caawino inay ka yaraato madax adeega so inshallah soo dhawaada videogan waxaan isku dayaa inaan example iyo tusaale iyo action waxyaabo action aad sameyn kartiin inaan la baxdin rather than theory sometimes waxyaabo waxaa jira theory oo akhriska la ku fiican mise sheegitaan ku fiican laakiin action aad u bedeli karin oo mise aad dib ku tahay qofka inuu action u bedelo laakiin waxaa xoog saaraa inshallah inaan action plan ay siiyo oo shaqeynaa ilmaha marka caawi karo inay madax adeega ka yaraato mise madax adeega looga hortago inshallah madax adeegana waxa saa isku soo raacnay waa wax dabiici ah madax adeega sometimes doon cuniga madax adeeg qabin especially markuu 2 sano gaaro developmentally dadka waa wax laga walwalo oo la dhaho cuniga madax adeeg lama imaan cuniga no ma isticmaalo maxaa ka qaldan sometimes waxa waa madax adeega waa sign oo cuniga inuu developmental kiisa oo age-kiisa la socdo sometimes ay sheegaysaa oo cunuga oo soo weynaanayo maskaxiisa isticmaalayo yahay so madax adeega waa wax lagu farxo marka cunigaaga madax adeeg keena la arko markuu yar yahay because developmentally waxa ogtaa cuniga inuu healthy development ku socdo mise normal development or typical development ku socdo oo caadi yahay oo normal developmenting wixii looga baahnaa oo sameeyay sida socodka oo kale socodka cuniga waxa waaye oo wax laga filanayo oo la sugayo sida hadalka oo kale sida kale waay madax adeegan waa wax laga sugayo ilmaha oo laga filanayo so wax ma ahan oo in la baabi'iyo la rabo waa part of human laakiin waxa waaye of course every walid waxaan rabnaa ilmaheen inay hadalkeena maqlaan waxaan rabnaa ilmaheen inay na adeecaan waana waxa waaye ilaahay quraan ku dhahay ilmaha in la adeeco ina aan culture-kii aan create gareyno waa ilmaha ay nagu hadalkeena maqli lahaayeen oo waxaan rabnaa ay sameyn lahaayeen so taas markaan ogaan madax adeeg inuu dabiici yahay wax oo normal yahay aan accept gareyno tan kale waxa waaye last time aan ka hadalay rabaa inaan xoog saarno ka waalid ahaan in marka aan isku laabno anaga marka aan wax hopefully waxaan rajaynayaa video hore soo fiirsatay in isku laabatay dib isku fiirsay waxyaabaha khaladaadka ka dhaco iyo sida siiqada marka ilmaha su'aal weydiinay sida weydiinay iyo stress level-kaaga iyo codkaaga iyo just the facial expression kaagi wajigaagi muuqaalka sometimes 70% or 65% hadalka la hadlayo 65 ilaa 70% boqolkiiba 70 waxa waaye wax wajiga laga arko ereyga leh ma ahana waa expressionka wajiga bixiyo wuxuuna qaadanaa wax badan like 65% to 70% waxa waaye expressionkaas hadalka inta kaarta oo dhimeystira so expressionka wuxuu ku tusinaya in muhiim tahay wajigaagi iyo korkaagi wuxuu cabirayo oo kaas oo baxo aad marka cunug wax weydiinaysid sida wajigaaga yahay iyo toonkaaga yahay expressionkaaga yahay wax qayb weyn ay ka qaadanayaan in ay qof oo ku dhageysto la raroon ilmaha inay ku dhageystaan so xooga aan saarna in aan toonkeena iyo facial expressionkeena aan dejino ogaano cunigan 80% waxa la ilmaha 80% ay hadal maqlaan 100% cunug hadal maqlay ma lahan so 20% chance ka jir mar walba cuniga wax weydiiso inuu ka maqlin to taasna ogaa la soco in ku talgasho cuniga wax ay gaba maqlaa okay markaan wax dhaho oo idiido maxaa ay diyaarsanaa marka imaanay maanta waxaan ka hadlaynaa marka wixii ku diyaarsanaa lahaa ka waalid ahaan ogaa cunigaaga doon hadalkaaga maqlaynin madax adeeg yahay magically madax adeeg yani kama baxaayo oo ka weynaanayo waxa u baahan tahay adiga hadii behavior ilan wixii u dirta doon homework sameeyeen misoo alaabtiisa habaysaneen daily problem ay noqonay waa muhiim waa marka inuu cunug oo hadalkaaga maqlo oo waxa u dirtay oo sameyn karo wax at least everything ma laakiin 80% of waxa u dirtay inuu sameyn karo waa muhiim waay so marka
waxaa rabnaa inaa ogaano waxaa muhiim ah first thing aa ka bilaabeysaa wixii aa rabtid cunigaaga hadda ilan 20 markasta hadalkaaga ma maqlaa mise marmaraa jirto cunigaaga hadalkaaga maqlo pay attention to mararka hadalkaaga cunigaaga maqlo already waxyaabo easy u ah oo mar walbaba uu samayn karo oo haddaba uu aada problem ku qabin maa jiro mise mar walbaba hadalkaaga ma maqla horta taas kala bixi aan dhihi lahaa first waxyaabaha hadday jiraan oo u fududo markaa dhahid kaali ii imaaw macaan ku siiya or kaali ii imaaw sit on me ilmaha hadday yar yihiin laakiin videoga waxaa focuska saaraa ilmaha 6 yearsiga ilaa iyo 12ka inta u dhexeyso insha Allah because ilmaha laskuma dari karo teenager iyo ilmo yariis oo 5 sano iyo ku hooseeya waxaa waay developmentally baahitaan gooni ay qabaan so ilmaha 6 years ilaa 12 years waa ilmihii marka aan focuska videogan saaran yahay cuniga marka waxyaabo basiida marka u dirtid oo adiga amar weyn aan ahayn oo kadoon ka maqlay kuwaas ku focus garay markaan kuu wacay waa ii imaaday right away ii imaaday praise garay praise waxaa dhahaa inaa buubuuniso marka wixii aa rabto inaa samaysid inaa buubuuniso waay so first waxaan ku dhihi lahaa because sometimes anaga waxaan aragnaa waxyaabihii oo waxyaabihii xunxun aa isheena qabato mise waxyaabihii aan rabnay inaa aan ilmaheena aan ka bedelno waxaan ku dhihi lahaa laakiin bini aadamka waxaa waaye carabta waxinaan caynu naxla lahaa oo caynu dubaaba lahaanin caynu naxla waxaa waaye shinada marka ay waxay aragtaa ubaxooyinka qurux badan iyo flowerkaasay aragtaa isheeda waxaa qabto waxyaabaha ku qurux badan shinada laakiin dubaaba maxaa la dhahaa tixsiga wuxuu arkaa lay qashin hadduu meel qurux badan oo flower joogo oo xadiiqad wuxuu la raatanaa meesha qashin qobka iyo waxyaabaha xunxun ishiisa ay raadsaneen so cayn ishaadi lahaa isha shinadoo kaleeto aragtidaadii ha ahaato caynu naxla ha ahaanin caynu dubaaba taas marka focuska saar first thing before aad waxba bedelin tan kaleeto ogaaw ina adiga waalid tahay bedelaada iyo isbedelka adiga lagaaga baahan yahay ina la imaatid oo cuniga hadda isbedel u baahan yahay adiga aad kala shaqaysato program u samaysido adiga aad aqoontaadi oo parentinimada waalidnimada aad kordhisido adiga inay shaqo weyn kuu taalo ogaaw cuniga inuu saqiid yahay ilaahay mas-uul adiga kaaga dhigay oo adiga shaqada ay ku taalo oo adiga dadaal badan iyo waxa loo baahan yahay in adiga foojignaan badan ay la imaatid saasna ogaaw si aad isbedel u aragtid laakiin isbedelka ma imaanayo asagoona anagoona awareness ay ka bilaabataa waa in aad horta fahantaa wax inay qaldan yihiin oo ogaataa in cunigan ilmahan hadalkaa maqlaynin marka ay wixii marka ay kugu taagan yihiin aa rabto action inaa ka samaysid dan haddaan aqoonteeda aa rahaysatid dan haddana action aa la imaatid iyo program taasaa marka aan focuska saarayna insha allah after ognaashada programka usually programyada badan oo research laga sameeyay aan idinla sheekarayna programka oo waxaa la dhahaa positive waxa aa rabtid cuniga masalan for example cunigaaga hadoona homework samaynaynin because that's problem waay mise hadoon cashirkiisa qur-aanka akhrisanaynin problem usually ilmaha dhammaan waalidiinta badan ay qabaan waay ha ka filan cunigaagii hadhihin cunigay 30 minute cashir oo samaysanaan dan markaasaa weekendga marka la gaaraa meel u wadaa price aan siinaa saas ha isdhihin ka raali ahaada I think there is a motorcycle aa socdo so raali ahaada so hadhihin cuniga waxaa waaye wiiga marka u dhamaadaan sugaa waxaa samaysaa problemka markaas ku haysta identified hal xabaha soo qaado laakiin cunugaaga leeyno hadal waxyaabo badan oo kaa maqlayna laga yaabaa waa wax normal ah kulligood hal mar lama samayn karo hadal maqitaanku waa wax weyn waaye hal shay action ah soo qaado maybe waxaan dhahdaa cunugayga waxaan waa after every day inuu homeworkiisa samaysto then haddana actionkaas mas cunugayga homework ma samaysto problemka homework aan xooga saara okay problemka homework haddaa xooga saara waxaa u baahantaa marka inaa ogaatid inaa 5 step oo kale aa la imaatid waxaa leedahay cunigayga waxaan rabaa inuu 5 daqiiqo maalin walba 5 daqiiqo miiska intoo fadhiisto homework waxaan u dhiibo mise haddaan wax qor dhahaa homework waxaan u dhiibo inuu samayn karo 5 daqiiqo waa inay 5 daqiiqo sometimes ma xataa qaar 5 daqiiqa ku badan waxaa laga yaabaa inaad dhahdid 2 minute aa ka bilaawdo oo 2 minute kaas ka bacdi markay kuu shaqayso every 2 minute cunigaa markuu 2 minute meesha fadhiisto oo wixiisa akhristo aad dhahdid aad pricing marka price
dhiirigeli buunbuunay wixii ilmaha waxay u baahan yihiin oo waxaasna wax la iska dhahoy ma waa wax la soo daraasayo la arkay in ilmaha u baahan yihiin ilmaha qaar especially ilmaha westernka lagu karinayo I think all children are the same pricing and action ka sameey wuxuu sameeyay oo wax weynaas wuxuu sameeyay tusi inaa ku faraxsan tahay tusi inuu wax fiican sameeyay tusi inuu labadii 5 daqiiqo meesha fadhiyay miraheeda tusi waxay ka soo baxay oo wixii uu sameeyay actually so waa ina exciting face la imaado waa ina codkaadii bedeshaa waa ina either naftirkeeda waxay u baahan tahay practice iyo technique muraayad horteeda ku practice gareed darabtid technique u baahan tahay wax iska imaanaya especially hadaad u baranin laakiin maca time maca practice waxa arkaysaa inay natural ku noqotay price gareeyo cuniga 5 minutes ku ahaato after 5 minutes marka cuniga waxa loo baahan yahay inaad reward u diyaarisid mise prize and reward I don't like the reward thing exactly but like pricing yani ereyga mise waxa laga yaabaa inaad dhahdid cuniga maanta casharkaaga samaystay for 10 minutes waxoogaha banaan kusoo ciyaar haduu playground outside ka haduu safe tahay waxaa leedahay wuxuu jecel yahay free time sometimes free TV ga iska fiirso 15 minutes TV time aa leedahay or 30 minutes TV time aa leedahay waxyaabo waxaa rabtaa marka cuniga maskaxdiisa excitement gelinaya ilaa maskaxda aan ka shaqaynona maskaxda waay waxa la train gareynayo habadka la barooy waa shay maskaxda ah maskaxda waxay u baahan tahay in dhiirigelin la siiyo maskaxda waxay u baahan tahay in cuniga la bubuuniyo maskaxda waxay u baahan tahay cuniga inuu dareemo wuxuu sameynayo wax oo siis wuxuu rabo rabitaan raqabo inay gasho waay oo motivated noqdo oo sii sameynayo motivationkaasna waxaa imaanaya buunbuuninta imaanayso in waalidka kale markuu u sheegtid maanta abi markuu soo galo dhahdid masaxda telefoon aad dirtiin aan dhahdeen fulaan wuxuu sameeyay homeworkiisa 5 minutes oo without distraction of 5 minutes oo miiskiisa fadhiya maanta fiir wuxuu sameeyay sawirtid cunugay abi sawirkiisa u dirtid family member kale dhahdid cunugay saasuu sameeyay sometimes ilmaha qaar intaasaa ku filan motivation wixii next time ay sameynayaan so waxyaabo yar ka bilow waana hadhina ku daynin cunuga sometimes anaga waxaan dhahnaa cunuga adiga kaliya waxaan dhahnaa qolkaaga for example qolkaaga samayso sariirtaada samayso cunuga ha assume gareyn inuu sariirtiisa oo hagaajisan karo xataa haduu weeyahay la maalmaha koowaad ilan training aan ku jirta training ahaan u qaado training markuu qofka shaqo bilaawan laguma tago shaqada xataa haduu shaqadaas oo kale kasoo shaqeeyay waa la agtaagaya waa la train gareeya so training period qaado oo agtaagnaa cunuga actionkii la sameeyay waxa dhad let me help you be helpful ogalaa inaa caawisid maalmahaas homework kaleeto homework alaabtadan ku diyaarna I'm gonna set up the table for you I'll help you inta waa ku caawinaa anaa alaabtaada kuusii qaala miska kuu saaraa leedahay adiga saas ma sameynaysa cala tuul uma sameynaysa waa waqti yar bidaayadii aa rabtaa ina waxyaabo cunugii aa ku caawinay oo ina actionkiina oo isaga marka maskaxdiisa la qabsanay maskaxda marka waxyaabihii aa samaysid boosa u samaysmaayo oo maskaxda boos ay ka lahaanay oo maskaxda marka neurons build gareysmaayo wixii isla wire garayaan waxa la science way boosa maskaxdii wuxuu cunugii oo fahma oo ka samaysma maskaxdiisa in oo action kaas uu sameeyo behavior kaas oo sameeyo maskaxdiisa boos ay ku lahaanay booskaasna waxa marka sii xoojinaa manuuba wixii sameeyo haddana booskii wuu sii kubca maskaxdii marka wixii way la qabsanay wixii oo awal dhib ku ahaa tartiib wixii waxay la naqanayaan wax normal ah sida brushing teeth ee ka la cadaysto kale marka la cadaysana markuu yar dhib ay ku tahay laakiin marka by the time practice ka human nature ka no automatic ay naqday automatic waxa ka dhigaa waa repetition ka waay repeating waxa lagu celceliyo practice ka waay so practice iyo patience u baahan tahay sabr badan ina cuniga la practice gareysid ina diyaar u hanid cuniga ina la taagnaatid marka maalmihii koowaad oo fahmayo oo aabaroosid ina la taagnaatid sariirtiisa oo sariirtiisa oo firaashayo kaleeto hadoo ina la taagnaatid homeworkiisa samaysan la hadhihin ha ku daynin homework agtiisa fadhiiso dhiirigeli helbagarey si wuxuu u baahan yahay then slowly maalintii kaleeto haddaa next time aragtid tartiib marka inaa oga baxdid waay kow waa caawinaya then slowly you withdraw yourself waxaa leedahay tartiib marka waxaa maanta adoona caawin haduu isaga oo ku dhaho waqtigiisa meesha soo fadhiisto homeworkiisa 5 minutes sameeyo waxaa masha Allah maanta 5 minutes samaysay let's do a challenge aan sameyno oo aan tartan aan challenge waxaa lahaa tartan ahaan wax oo
challenge. So waxaa leedahay challenge aa galno maanta, let's see if you can make it 6 daqiiqa hadaa ka dhigi kartid adoon distraction gelin. Wow, see ku samaysay, see 6 minute aa ku fadhisay adoon la istaagin. Maxaa markaa maskaxdaadii la hadal conversation markaa aa rabtay aa istaagtid, maxaa ku celiyay, maxaa isticmaashay, maxaa isku halmagaraysay, focuska kugu caawiyey, maxaa temptationka iskaga ilaalisay. Temptationka muhiim waa in la baro ilmaha inaa biniaadinka uu temptation leeyahay, uu waxyaabo raqba leeyahay. taas waxay ka caawinaysaa temptationka oo waxyaabo badan oo ka diini ahaan xataa temptationka qofka inuu barto inuu biniaadan tahay, raqba la shahwaad leedahay, shahwa se iskaga ilaalinaya marka raqbadaadii u controlay naftaadii. waa shay muhiim. waxyaabahaas marka yariska oo practice-ka barona ay ka bilaabanaysaa in cunuga oo taxakum naftiisa oo bilaawo raqbadiisa inuu xukumi karo for a short time. hadhow marka weynaan of course way sii zaaiday. So taas practice-ka waqtiga practice-kan waxaa loo baahan marka waqtiga hooyada mise aabaha qofka practice kala sameynayo maskaxiyan diyaar u yahay inuu practice la sameyn karo, cunugan ready u yahay oo programkan oo bilaawayo oo maskaxiyan diyaar u yahay. Because sometimes hadaa waqti adiga stress kugu furayaan mise hadaa waqti adiga aada time helin, badanaa behaviorka marka la baraa ilmaha time xoogaa time u baahan tahay. time badanna ma aha, laakiin bidaayadii xoogaha time ay u baahan tahay, tartiib time kuu sii yaraana. hadaa waqti adiga timeka weekend oo kale u bilaaw, mise marka hadda iskuulka inta iskuulada xiran tahay perfect time waa in behavior change la bilaawo, mise waxyaaba guriga lagu bilaawo ilmaha. Because waqtigaan oo kaleeto waqti stress kale ay qabin oo iskuul iyo waxyaaba kale ku furneen. So slowly haddaada ilmahaaga ay guriga ku joogaan, it's perfect time waa as habit training aa ku bilaaway. marka hakuu programkaas adiga marka foojignaaw, la soco, caawi. after aa caawiso marka tartiib uga bax, tartiib uga yaray caawitaankaaga yaray, then slowly wixii sii badi. marka sii badi hadafkaaga 15 minutes waa. remember waxaan nahanay tusaalaan soo qaadanay 15 daqiiqa rabtaa cunugaaga inuu kursigiisa fadhiisto, cashirkiisa samaysto. 5 daqiiqa ka bilowday, tartiib 6 daqiiqo 7 daqiiqo kordhi. by the time waxaa rabtaa marka adiga bilow kala qabso, bil ilaa 3 months usually. laakiin 21 days waxaa lahaa usually 21 days ka hore haddii consistent ahaato oo adiga oo xiriir ahaato aan ka gogo-in, waxay kugu saahilaysaa marka inta ka hartan inay sii fududaato ilaa 3 bilood. marka after 3 bilood marka wixii waxay noqonayaan caado qofkii oo la qabsaday, cunugii wixii automatic u arkaa, ma dhibsanayo, waxooga fudayda imaanaya. So maanta maxaan programkaas inaa idin sheego rewardigaas iyo toonkaagi iyo ina adiga isla socotid waxyaabo badana marka of course jiro. iyo cunuga inaadan dhihin cunugan uu madax adag yahay, label sameynin. marka soo daacdida garoga iska dhaadhacsid cunuga uu madax adag yahay, isna oo maqlaa uu madax adag yahay, madax adag yahay, ka uu madax adag yahay, wuxuu iska dhaadhacsanaa inuu madax adag yahay. actionkiisa oo la imaanaa, behaviorkiisa oo la imaanaa inuu madax adeegnimada. so anaga u salaxeeno inuu isaga iska dhaadhacsiyo inuu madax adag yahay. iska ilaali hadhiina uu madax adag tahay, uu cunuga uu madax adag yahay. qof walba unique waaye, qof walba different waaye. adiga different aata, aniga different ah, we all different. how can we different nimadeena saa u aqbali lahayn nalay dheh cunuga different aa tahay, unique aa tahay waa la dhihi karaa, laakiin madax adeegaa tahay ma fiicno in la dhaho. because dhow waxaase iyagana internalize garaynayan, iska dhaadhacsiinayan. so intaasa aan rabaa videogan aan ku sheego. next video marka waxyaabo badan ilaa maanta aniga hal shay aan sheegnay, waxyaabo badanaa jiro looga hortago madax adeega. waxyaabo marka insha Allah techniques kala idinla share garayna with an example. for example waxaan la sheegay anoo kaleeto hadda waxaa one of my children, ilmahayga mid ka mid ah, way oysaa usually gabar yar waa aan dhalay. oohinta ilmaha oohinta waa loo isku mid maaha, kuwana waxaa waay oohintooda zaa'id waay, kuwana marmar lay ooyaan. cunugta marka oohinteeda maasha Allah badan, way isku oysaa, emotional waa early. emotionka marka wax kasta waa try garayna markasta aan ag fadhiisto, aan halbo aan timekeeda siiyo, aan agteeda fadhiyo. laakiin way ii shaqeyn weyse, waxyaabo badan aan try garay way ii shaqeyn weyse. marka ilaahay markiis wuxuu ilaahay waafajiyey ina challenge-ga ii shaqeeyo. challenge game or play game allah. challenge-ga waxaa waa inaan dhaho okay mama itusi haddaa adiga cod yar ku ooyin kartid, cod yar ku ooyin kartid, show me, because very loud ay ooysaa. so waxaan iyadoona caadi oona ooynaynin waxaan dhahay challenge ila gal, waxaan tartan ila gal haddaa itusi inaa samayn kartid cod yar ku ooyin kartid adoo codkaada qaylin.
itusi inaa iimaan kartid forest waxaan dhahay codka ay tusta marka waa jilneen iyada waxaan bismillah maasha allah si fiican oo kasi I never weligayga uma malayn inaa sameyn kartid weligayga uma malayn inaa cod yar ku oyn kartid oo intaadi codkeeda waa very low way compared to marka kaleeto se ku samaysay waxay isku malaysay in wax wax وين سبيس عرفتي of course ويرت الماء مركي يريهين behavior كdifferent واي أفرجير واي عرفتي كادلاي لكن مركي of course سي وين هذا و different stuff وحيوات كلنا different stuff الشقينا so anyway the more I said that the مركي إذا هذا sometimes they see me عدكي وحاول عدينا نكوينو يا ميجي عدكي وينا إذا يسوح سوسيفا so sometimes وحيوات تلاقي كوالد waxyaabaha oo waxa ku shaqeyn karo waxaan aniga hada sheegaa laga yaabaa inaan ku shaqeynin waxyaabo kale adiga ajeebka kala imaada muhiimadu waxa waa intentional muhiimadu waxa waa inaan foojigsanahay aan ka warqabno waxa aan rabno ilmaheen aan ku abuurno waxa rabno inaan ku soo saacidino aan ka warqabno aan shaqadeena actionkeena la imaano action marba action because waxyaabaha fahantido aqrisidoo maqashid aad action la imaanin waxba ma bedeleyso waxaa muhiim oo badanaa dhibka practice-kii actionkii aan sameyno ka waalid si aan u aragno miraha insha Allah shaqada aan sameyno shaqo culus shaqo oo fudud ma ahan waa shaqo culus waaye waa shaqo cadiima waaye ilaaha ajirkeeda fi waan xasuuso arabtu waxna madrasa ilmo madrasatuna la school waaye hooyada iyo aabahaba remember we school oo kala school ka soo rangareeyo waxa oo kala in loo rangareeyo waaye requirement iyo waxa mas'uulinimada iyo baritaanka iyo howsha badan ka imaaneedka school ahaanka training ahaan waaye iyo ka badan so role co-parent is not easy role ma aha like I always say anagana waa isku la jirnaa waxa idin joogaana amoor u baahan ilaahay garabkeen ha galo ilaahay ilmo baariyaal nooga dhigo ya jazakum allah khair thank you so much guys if you stand the video please share garay dad kale se u gaaro message-ka igana ka faa'iidaan الدال على خير كفاعلي جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته